fadhigii maanta ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland oo shirgudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada mudane Baasha Maxamed Faarax ayaa waxay xildhibaanadu ka ansixiyeen xeerka aasaaska hay'adda caymiska Soomaaliland waxaana ka hor intii aan xildhibaanadu xeerkaasi ansixin xildhibaanada hortooda qodob uga akhriyay xogayaha guud ee golaha wakiilada mudane Cabdirasaaq Siciid Ayaale qayb dhismeedka hay'adda caymiska wuxuu ka kooban yahay guddiga hogaaminta hay'adda caymiska waa boardkii weeye gudoomiyaha hay'adda gudoomiye ku-xigeenka hay'adda waaxyo iyo laamo heer gobol ah hay'addu waxay yeelanaysaa agaasimo guud oo xilkiisa u gudanaya si waafaqsan qodobka 15aad ee xeerka kala xadeynta nidaamka xukuumadda iyo hay'adaha madax bannaan xeer number 71205 qodobka 9aad baan ku daraynaa guddida hogaaminta siyaasadda caymiska hay'adda caymiska qaranku waxay yeelanaysaa guddi hogaamineed waa boardkii weeye siyaasadda hay'adda caymiska oo ka kooban wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda gudoomiyaha banka dhexe gudoomiyaha hay'adda caymiska xubin ay soo xulaan ururada qareennadu dalladda shirkadda caymiska gudoomiyaha rugta ganacsiga xubin ay soo xushay wasaaradda diinta iyo waqaafta oo lagu soo xulayo aqoonta uu leeyahay cilmiga dhaqaalaha islaamka guddidu waxay madaxweynuhu ku soo saarayaa xeer madaxweyne waxaana xildhibaanadu qodob u ansixiyeen xeerka aasaaska hay'adda caymiska intaasi kadibna waxa uu gudoomiyaha golaha wakiilada mudane Baasha Maxamed Faarax halkaasi kaga dhawaaqay natiijada xildhibaanadii u codeeyay xeerka aasaaska hay'adda caymiska waxa golaha fadhiya 44 xeerka 1 ilaa 26 waxa ogolaaday 3 xildhibaan 10 xildhibaan waa diiday إذا كمان مسين كدوميه مو عضين حيرك عايمس كقارن كهيئة ساسو أنصح فيها